hay'adda Daaf oo ka wakiil ahayd hay'adda One Life oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa maanta waxa ay deeq isugu jira gaari ambalaas ah iyo daawo ay gaarsiiyeen Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. munaasabad kooban oo lagu qabtay Isbitaalka Madiina oo ay ka soo qayb galeen agaasimaha waaxda anshuurdhaafka ee wasaaradda gargaarka madaxa hay'adda Daaf iyo agaasimaha Isbitaalka Madiina taasi oo Isbitaalka Madiina loogu wareejinayay deeqda ka timid hay'adda One Life. Abikar Xuseen oo ku hadlayay magaca hay'adda Daaf kana wakiil ahaa hay'adda One Life ayaa ku wareejiyay deeqda agaasimaha Isbitaalka Madiina. waxaan halkaan maanta Isbitaal Madiina u joognaa in aan wareejino ambalaastan laga soo diray UK iyo daawada saaran gaariga oo loogu talagalay Isbitaalka Madiina oo runtii aan ka wada dhareegsanahay shaqada muhiimadda leh iyo baaxadda weyn leh ee ay u hayaan bulshooyinka Soomaaliyeed. ma ahan markii ugu horeysay aan soo gaarsiino daawo iyo ambulance. sanadkii la soo dhaafay bishii August waxaan sidoo kale soo gaarsiinay daawo iyo ambulance markaan waa marka labaad ee aan soo gaarsiino. sidoo kale waxaan mahad gaar ah u celinayna wasaaradda dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradaheeda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka, wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo runtii in badan fududeeyay kaalin weyn ka qaatay in agabkaasi mucaawanada lagu soo saaro si oo maxaan ku dhahaa free ah oo aan wax qarashaad oo canshuur ah oo laga bixiyay aysan jirin. runtii waxaan leenahay guuleysta dhammaantiin mana ku ekaan doonto in markaan kaliya aan daawada soo gaarsiinay waa markii labaad mar saddexaad iyo marar kale ka badanna waxaan rajaynaynaa in aan u keenno daawo ka tayo fiican oo maxaan ku dhahaa ka tiro badan iyo maxaan ku yiraahdaa ambulaasyo oo tiro badan insha Allah inaan soo gaarsiino Isbitaal Madiina anagoo la kaashanayna wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliyeed. agaasimaha Isbitaalka Madiina Maxamed Yuusuf oo hay'adda ka gadoomay deeqda ayaa hay'adda One Life iyo Daaf ugu mahadceliyay deeqda ay soo gaarsiiyeen Isbitaalka Madiina wuxuuna sheegay in hay'adda Daaf dhowr jeer oo hore sidaan oo kale ay deeq soo gaarsiiyeen Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. waan ka gudoonay waana ku sharfan yihiin macaawimadan oo ay noo soo gudbiyeen hay'adda Daaf Disability Aid Foundation ambulance-ka noo soo dhiibtay ayagoo wakiil ka ah hay'adda One Life Global Welfare oo deegaankeeda yahay Manchester UK. aad bay u mahadsan yihiin tii u horreysay ma ahan ambulance kale oo dhinacan yaallo ay kol hore noo soo gudbiyeen oo aad iyo aad yacni u nacfi badan oo wanaagsan kuwa kalena waa idin keenaynaa ay yiraahdeen. waxaa kaloo goobtan nala jooga aan u mahad celinaynaa wasaaradda yacni gargaarka iyo maareynta arrimaha degdegta ah oo ka qayb qaadatay canshuur dhaafta ambulance-ka iyo qalabada kale oo naloo keenayay. ilaahay mahad ka gaarsiiyo. waxaan annagana waajibkeena aan ka gudanaynaa alaabtaasi iyo daawooyinkaasi naloo keenay sida loogu talagalay iyo hadafka laga lahay sida ay ahayd inaan u isticmaalno. waana mahadsan yihiin. jazaakumullah. waa markii labaad oo hay'adda Daaf ay deeq isugu jirta daawo iyo qalab caafimaad ay gaarsiiso Isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Cabdi Fataax Durdur, Tusmo TV, Muqdisho.